waxaana la rabaa inuu si fiican u shiidnaado wakaas laba muxuu aha dhalo oo kale yar buu ku jiraa. haddaad doonayso hortag iyo cudurrada inaad iskaga daweyso ood ku dhaqanto xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam subaxii iyo fiidkii baad isticmaalaysaa. faa'iidada 5 iyo 16 ama 17 waxaa weeyaan hargabka waxa loo yaqaano ayuu cagta mariya. faa'iidada 6 ee uu leeyahay wuxuu kor u qaadaa waxaa weeyaan dareenka taranka ayuu kor u qaadaa rag iyo dumarba. shartina waxaa ah markaas intaasoo kale in la eg ayaa galaas biyo ah lagu dhigahayaa intii lagu walaaqa maqribkii. bismi illah alxamdu lilah wthanaau lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah. baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra waaxsana allahu ilaykum. meel kastood adduunka ka joogtaan, maanta darsigeenna wuxuu ku saabsan yahay geed wakhtiyadan dambe bulshada soomaalidu aad ay u garanayso ee aada u taqaano ugana faa'iidaysatay waxtarkiisa iyo waxqabadkiisana ay in badan bulshadu taqaano. nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay ummadda. geedkaas isaga ah waxaa la yidhaahdaa qistulhindi ayaa la yidhaahdaa qistulhindi. qistulhindiga qistulbaxri, qistulhindi, cuudulhindi, intaba waa isaga. waa noocyo kala duwan yahay oo mid cad oo qistulbaxri inta badan loo yaqaano iyo mid guduudan qistulhindiga mid dhexdhexaada intaba waa leeyahay. midka aadka u faa'iidada badan oo inta badan xanuunada faraha badan dawada ka ana waa midka loo yaqaano qistulhindi, waa midka kharaar. kan kale waa macaan yahay laakiin kan qistulhindiga ah waa kharaar. waxyaalo fara badan iyo xanuuno aad u tiro badan buuna dawo u yahay, bulshada soomaaliduna way taqaanaa. geedka isaga ah nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina fiihi 7 ashfiya. culamada islaamku markii ay sharxahayeen xadiidka isaga ah waxay leeyihiin 7 ashfiya waxaa laga wadaa yacni 7 cinwaan oo xanuunada ah ayuu u yahay. kolkii hadda cilmiyan loo sii baadhayna inan icjaaskii kitaabka iyo sunnadu ilaahay baa inoo sheegay oo sanuriihim aayaatina buu yidhi maalinba in bay dadka u soo bixi. ilaa iyo hadda waxaa la gaadhsiinayaa xanuunada u fiican yahay geedkan isaga qistulhindiga la yidhaahdo inta si cilmiga loo taxqiijiyey 30 ayay gaadhahayaan. waxaana laleeyahay weli fari kama qodnaa laleeyahay. fawaa'idda uu leeyahay geedkan isaga ah weli fari kama qodno. qistulhindigu marka waxaa weeye waa geed hindiya ka baxa oo cali ushiisii weeye, sida cadayga oo kale u baxaa geed cali ushiisii wata weeye, waana ka yaraha buurbuuran yahay. marka geedkaas isaga ah wuxuu leeyahay 2 qaybood. midka kharaar ee qistulhindiga loo yaqaano geedka isaga ah weeye midka aadka usii faa'iido badan. qistulbaxrigu meel uu kaga sii yaraha xoog badan yahay ayaa jira. kan kaleeto asagu uu kaga xoog badan yahay markii xanuunada loo yaqaano cudurrada jinka nooc kastay ku imaadaan, ama il ha ku imaado ama sixir ha ku imaado ama iskii qofka ha u galo ama familka ha ka soo wareega noocyadii jinka uu bini aadamka ku galayay. system marka isaga loogu daraa jira oo maaragtay uu ku xoog badan yahay waxa loo yaqaano qistulbaxrigu. ama cudurrada kaleeto calanka waxaa sita qistulhindiga ayaa maaragtay calanka sida. geedkaas isaga ah markaa waa geed aad iyo aad u qiimo badan, waa geed waxtar badan u leh muxuu ahaa caafimaadka. hadda ka hor duruus baan ka bixiyey fara badnayd, waraaqaan ka qoray si ay dadku af soomaali xitaa aan ku turjumay si ay dadku uga faa'iidaystaan oo luuqadda ay garanayaan ay ugu akhristaan. waaba qaybiyey oo masaajidkan ka qaybiyey waddadii bannaankiisa meelo badan si bulshadii maaragtay ay u faa'iidaysato. ma ogi meelay ku dambeeyeen hadda waraaqahaas. geedkan isaga ah marka
fawaa'idda uu leeyahay ee ugu horeysa waxaa ka mida wuxuu hagaajiyaa qanjidhada hormoonada, tawaasunkooda oo dhan ayuu balansi gareeyaa ama uu simaa. hormoonada oo dhan waay, hal hormoon ma ah. marka waad garanaysaan xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam, jidhkeenna oo dhan waa wada hormoon. markii la yidhi ina fiihi 7 ashfiya uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam, cabaas ibni cabdilmuطalib iyo iyagoo wuxuu u imaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam, wiil samboor baan ka jebinaynaa loo sanka ka xudhaynaya. markaasuu nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam xadiiskii macnihiisii muslim iyo keyrkii, calaa maa tadkarna awlaadakuna bihada alcalaaq, war maxaad ilmihiina oogu sanjabinaysaan bahalkan isaga oo dhamxalagoodii iyo bacraarkoodii waxa weeyaan aada u dhibaataynaysaan. calaykum bihada alcuudi alhindi, waa geedkan maad isticmaashaan qistulhindiga loo yaqaano, oo yacni qofka markuu samboor qabo waa lagu uumiyaa oo biyihiisaa sanka lagaga shubaa oo waa la isku qiijiyaa. sharti marka la isku qiijinayo in indhaha aada loo xidho oo loo daboolo qiiqa indhaha laga ilaaliyo. shardigaas marka qof walba inuuna hilmaamin ayaan doonaynaa. waa arrin marka daruuri ay tahay oo qofku markuu isticmaalahayo qistul hindiga ay tahay mar kasta inuu ka digtoonaado markuu isku qiijinayo. markaad isku qiijinaysa waxaa la rabaa indhaha in xoog loo xidho oo weliba maro lagu xidho oo indhaha uuna qiiqu u gelin. indhaha waa qiiq iyo waxa loo yaqaana saliidba indhaha waa laga ilaaliyaa. labadaa shayba indhaha waa laga ilaaliyaa. waxaa weeye waxa loo yaqaano qiiqa iyo waxa loo yaqaano saliidda, labadaba indhaha waa laga ilaaliyaa oo ma fiicno. marka geedkan isaga qistulhindiga la yidhaahdo qudadka hormoonaadka oo dhan buu balansi garaynayaa. kii hoos jirayna kor buu usoo qaadayaa, kii kor jirayna hoos ayuu u dejinayaa. tawaasunka marka qanjidhadii taranka oo dhan iyo qanjidhadii hormoonaadka oo dhan kulligood waxaa weeye wuxuu isu keenayaa, kii hoos jirayna kor buu usoo qaadaya, kii kor jirayna hoos ayuu usoo dejinayaa, markaasuu balansi garaynaya. faa'iidada labaad ee uu leeyahay jidhkoo dhan buu kicinayaa, sida qaxwadii oo kale weeyaan, oo waa munashid, si fiican buu maaragtay, iyo malabkii oo kale weeye, jidhkiibuu waxa weeyaan ku samaynayaa, kicin buu ku samaynaya. faa'iidada labaad ee saddexaad ee uu leeyahay wuxuu u fiican yahay xididada. xididada oo dhan ayuu u fiican yahay, oo sida wuxuu u shaqaynayaa waxa loo yaqaana asbirinka oo kale, oo xididadiibuu maaragtay oxygiintiibuu xoog u siinayaa jidhkii. markaasaa waxaa weeyaan acsaabtiisii xididadii oo dhan baa fiicnaanaya. faa'iidada afraad ee uu leeyahay inagoo soo gaagaabsanayna, kolestaroolka xun ee dhiigga gala ayuu cardaaduqeeyaa. hadda waa cardaaduqayn. kolestaroolka xun waxa la yidhaahdo muxuu ahaa xididada xidhay cudurada badan sababa ayuu waxa weeyaan si fiican u dhalaalinhayaa. yacni yudiib lilkolestarool fi dami wa bidaati sayi, weliba midda xun ayuu cardaaduqaynayaa oo dhalaalinayaa oo u gubahayaa. faa'iidada shanaad ee uu leeyahay wuxuu aada ugu wanaagsan yahay iyaduna xididada ama khalaaya almukh, maskaxda xididadeeda ayuu aada iyo aada ugu fiican yahay. faa'iidada lixaad ee uu leeyahay wuxuu kor u qaadaa waxaa weeyaan dareenka taranka ayuu kor u qaadaa, rag iyo dumarba. shartina waxaa ah markaas inaan biyo kulul lagu darin ee biyo lagu bariisiiyo. qaadadaas yarta ah eed u jeedaan, qaadadaa yarta aheed u jeedaan, intaasoo kale in la eg ayaa galaas biyo ah lagu dhigahayaa intii lagu walaaqa maqribkii. subxii buu qofku cabahayaa 12 saacadood kadib markuu ku jiro ayuu qofku cabahayaa. waa markii aad ka rabto inuu waxa weeyaan kor kuugu qaado dareenka taranka, markaad doonayso inuu kor kuugu qaado weeye, rag iyo dumarba. waana jinsi kasta, meel kasta oy da-daadu tahay waay. faa'iidada toddobaad ee uu leeyahay waxaa weeye kaadiduu badiyaa. waxa kaadida badiyana mar kasta wuxuu u wanaagsan yahay waxa loo yaqaano quruuraxa kelyaha gala iyo waxaa weeyaan infekshinada kaadida iyo kulli waxaas oo dhan waa u fiican yahay. yacni waa wax dhaqahaya weeye tarankii waay.
faa'iidada sideedaad ee uu leeyahay gaazaadka ayuu jidhka caloosha ka bixiyaa. waxa gaazaadka loo yidhaahdo waa daaridun lilghaazaati waalriyaax. wuxuu aad iyo aad kor waxa weeyaan u fiijiyaa gaaska waxa la yidhaahdo iyo dabaysha ama riixda hawada caloosha gasha ee dadka calooshooda qululuc ka siisa ayuu bixiyaa wey. faa'iidada sagaalaad ee uu leeyahay dhiigga ayuu dhaqaa. dadka infectionka dhiigga qaba aad buu ugu wanaagsan yahay. waa munaqin lidam, dhiigga ayuu aad iyo aad u nadiifinayaa. faa'iidada tobnaad ee uu leeyahay wuxuu hagaajiyaa bankaariyaska. waxay ka dhigan tahay markaas dadka sonkorta qaba inuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay, iyo dadka ku sii socda ay sonkortoodu waxa weeye albaabada soo garaacaysa, ama dadka firka u leh sonkorta inay geedkan isagaa isticmaalaan. qistul hindiga loo yaqaano waa munashitun lilbankariyas. waxaa weeyaan waana mujarab, wax la hubsaday weeye arintaas iyada ah. faa'iidada 11aad ee uu leeyahay waa munkhafidun lidaqdi dami. dhiigga ayuu dejiyaa, dadka dhiigkarka qaba dhiigooda ayuu dejiyaa. wa muwasicun lilawridati washaraayiin. wuxuu ballaariyaa, maadaama la yidhi kolestaroolkii buu idaabaynayaa ama uu dhalaalinhayaa, wuxuu furahayaa oo ballaarinayaa oo ka bixinayaa qashinka iyo xaabada iyo uu ka fogeynayaa xididadii ayuu maaragtay ka fogeynaya. waa faa'iidada 12aad mise 13aad weeye. dhiigkarkiina waa u fiican yahay. faa'iidada 13aad ee uu leeyahay xubno xanuunka ayuu u wanaagsan yahay. xubno xanuunka ayuu u wanaagsan yahay. dadka ka qaba cudurada mafaasisha iyagana aad buu u anfacahaya, ama xubnaha ka qaba. faa'iidada 14aad ama 15aadna waxaa weeye waa mudaadun xayawiyun qawiyun jiddan jiddan. waa antibiyootic aad iyo aad u xoog badan. marka dadka infekshinada qaba oo dhan nooc kastoo yihiin, hadda kahor waa inagii soo sheegnay inuu dhiigga dhaqo, haddana waxaa weeye waa mudaad xayawi qawi jiddan jiddan, oo aad weliba ugu xeel dheer antibiyootignimadiisa sidii toontii oo kale weeye. faa'iidada 16aad ama 15aad ee uu leeyahayna waxaa weeye wuxuu hagaajiyaa beerka iyo kelyaha. beerka iyo kelyaha ayuu u wanaagsan yahay. soomaalidu waxay tidhahdaa, dad badan baa isoo weydiiya, waxay dhahaan niyow baalku wuu kharaar yahay, armuu beerka dhibaateeyaa iyo bay dhahaan, waxay moodayaan waxa kharaar oo dhan inuu u daran yahay beerka. maya, mufiidun limashaakil اlkabidi wاlkula. kelyaha iyo beerka waxaa weeye aad ayuu maaragtay ugu wanaagsan yahay. aad iyo aad ayuu ugu wanaagsan yahay. faa'iidada 16aad ama 17aadna waxaa weeyaan hargabka waxa loo yaqaano ayuu cagta mariyaa. oo sidee buu u marinayaa? waa la isku uumiyaa. kolkuu sanku ku xidhan yahay, kolkaad sanboor qabto, markaad waxaa weeyaan hargab ku hayo, biyi intaad karkariso isku uumi, qayqa sanka iyo afka ka jiid. haddaad rabto ku dhex mantag, ku dhex unqaac. haddaad doonaysa si fiican qaacu waxaa weeyaan ha u galo sankaaga, waxa weeyaan gudaha ha u galo, adiga oo xadiiskii asaga ha ku dhaqmahaya si fiican sankaaga iyo afkaaga qaaca uga wada jiid, oo kulaylkiisii iyo waxa weeyaan qaaciisii biyihii oo maaragtay kuha waxa weeyaan ha galaan wey. faa'iidada 17aad ee uu leeyahay geedkan isaga ah waxaa weeye dhiigguu nugleeyaa. oo dadkii isticmaalayay asbirinka wadna xanuunka qabay waxaa weeye aad iyo aad ayuu maaragtay ugu fiican yahay weeye. bedelkii asbirinka haddaad isticmaalaysay dhowr beri kadib, intaad marka hore la isticmaasho kadibna inaad asbirinka waa iska dayn kartaa, isagaa bedelkaaga noqon kara. laakiin waa inaad dariiqi saxda ahaa u isticmaasho. intaa laga yaabo inaga dawada inaan si khaldan u isticmaalno, ayaa laga yaabaa hadhow inuu qofku yidhaahdo waxaasaan sameeyo waxba iima tarin. oo weliba soomaaliduna afka ka aamusi mayso, oo waxaa weeyaan boqol qof buu kusii aafayn oo kaga celinay dadkii ka faa'iidaysan lahayo sida fiican u isticmaali lahaa ayuu caqabad ugu noqonayaa intuu asagu si xun u isticmaalo. fawaa'ida 19aad ama 20aad ee uu leeyahay ayaduna waxa dhiigga fadhiistay ee waxa keestaroogga keena ayuu asagana waxa weeyaan la dagaalamaa. staroogga waxa keena ayuu la dagaalamaa. taana waa mujarab, ayadana wax la ogaaday weeye.
faa'iidada labaatanaad ee uu leeyahay waxaa weeyaan jimanka xataa cafaariidda kii balqiisa soo qaaday waxaa weeyaan wuu cardaaduqaynayaa. waxaa la yidhaahdaa xataa kii balqiisa soo qaaday baralays buu ka dhigahayaabaa la yidhaahdaa, laakiin waxaa uu la rabaa kayfiyo saxa in loo isticmaalo ayaa loo baahan yahay. kayfiyada saxda ana waxaa weeyaan labadoodiiba in la isku daro, qadarka laga isticmaalayo iyo inta la isaga darayo haddee khaas bay noo tahay, idiin sheegi mayno. waa inaad waxaa weeyaan madax walba haddaan banaanka idiin soo dhigno waxaa weeyaan hadde waa in wax laysu soo doonto daruuri wa. marka kayfiyada markii la rabo in lagu daweeyo xanuunada muxuu ahaa jimanka, qistulbaxriga iyo qistulhindiga kamiyad la isugu dari baa jirta. marka taasna waa inuu qofku sidaa u ogaado. in sha allahu tacaala waxaan rajaynayaa mar dhow in aan maaragtay aan diyaarin doono oon isku hagaajin doono biidnihi tacaala, waana idiin soo sheegi doonaa ilaahay idamkiisa. si caam ana waxaa weeye qistulhindiga waxa uu ku jiro isku uumintiisa iyo cabitaankiisa iyo kulli waxaa weeyaan jinka waa u dawo, laakiin markii la rabo in loola dagaalamo si khaasa waxaa weeyaan kayfiyad la isugu darahayo qistulbaxriga iyo qistulhindiga ayaa jirta. insha allah wasfadaana waa idiin soo socotaa biidnihi tacaala hadduu ilaahay ka raali noqdo. faa'iidada waxaa weeyaan ugu dambaysa oo uu leeyahay geedkan isaga ah qistulhindiga, fawaa'ida kaleeta uu leeyahay waxaa ka mid ah in uu waxaa weeye jidhka bini aadamka uu u soo celinhayo quwaddiisa iyo xayawiyadiisa uu u soo celinayo. waxyaalaha aan ka aragnay tajribo waxaa ka mid ah wuxuu u fududaynayaa qofku xataa dawooyinka kaleeta ee uu qaadanayo. geedo waxaa jira in dawooyin kale lala qaato aan ogolayn, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo barakada waxaa weeyaan waxyiga ilaahay ku dhex jira xadiidkii geedkan isaga ah fawaa'ida uu leeyahay aniga hadda iilaba sii cajiibsan waxaa ka mid a qofku xataa dawooyinka kaleeto oo dhan ee uu qaadanayo ayuu ku caawinayaa inay jidhkii si fiican ugu tagaan oo uu jidhku ka faa'iidaysto ayuu ku caawinayaa. sababtoo ay tahay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam almabcuuth raxmatan lilcaalamiin, ilaahaygii yacna nabiyullaahi moxamed uu u soo bixiyey raxmad isagoo adduunka u ah, isagana naftiisaba uu raxmad ahaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh, ayaa inoo sheegay oo yidhi ina fiihi 7 ashfiya. fawaa'idaasaan marka ugu dambaysiinaynaa amaa kayfiyada loo isticmaalayo oo aan doonayna dadku inay fahmaan daruuriga ay tahay. horta qistulhindigii waa kan isagoo madxuun ah, waa kan waxaana la rabaa inuu si fiican u shiidnaado. wakaas laba muxuu aha dhalo oo kale yar buu ku jiraa. amaa kayfiyada loo isticmaalayo, galaaska biyaha lagu cabo, galaaska biyaha lagu cabo ayaa dabka saaraysaa. galaaska biyaha lagu cabo ayaa dabka saaraysaa. markay biyuhu intay fax dhahaan aad ka qaadeen dhulka saa u dhigto, intaa in la eg baad ku daraysaa. waa u jeedaan, intaa in la eg ayaad ku daraysaa. galaaskii biyaha ahaa saddex muxuu aha 3 daqiiqa 4 daqiiqa ayaad aad u walaaqaysaa. shartina waa inuu si fiican u shiidan yahay oo uu budan yahay. intaa in la eg ayaad waxaa weeyaan ku daraysaa biyihii oo karay, kadibna waxaa weeyaan waad ku walaaqaysaa. si fiican baad ugu walaaqaysaa. kolkuu si fiican u miilmo ood ogaatay in uu midabkii biyihii isbedeleen oo midabkii uu ahaa geedkii ay noqdeen ayaad cabbaysaa. haddii aad doonayso hormoonadaada rag iyo dumar midkaad tahay inaad balansi garayso, waxaa la rabaa 3 jeer ugu yaraan maalinkii inaad isticmaasho. haddaad doonayso hortag iyo cudurrada inaad iskaga daweyso ood ku dhaqanto xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam, subaxii iyo fiidkii baad isticmaalaysaa. haddii uu jiro dacfi xagga muxuu ahaa taranka rag iyo dumarba, ayaga lama karin hayee biyaha lagu bariisay 12 saacadood ayaa biyo lagu darahayaa. hadda waxaaba sii fududba maaragtay caagadahan yaryaree biyaha kan 10ka la galo iyo ka 20ka la galo
intaad ku shubato kolba inaad ruxato oo meesha ku yaalo kadibna markaas aad doonayso inaad ku isticmaasho hagaajinta taranka kaad maqribkii la dhigtayna subaxii hal saac kaad hal saac la dhigtayna maqrib bacda alcisha cab intaana biyaha kuugu jira kolba haddaad jaanis u heshana ruux waxaa kaloo rabaa inaan ina xasuusiyo geedkan markaad rabto faa'iidadiisa rasmiga inaad gaarto 3 bilood ugu yaraan waa inaad wada dhooska saxda ah ee ugu yar waa 3 bilood inaad xidhiidh u wada wixii 3 bilood ka dambeeya markaas waxaa weeye ayaad kala bedelan kartaa laakiin markaad doonayso fawaa'ida marjuwiga taxqiijinteeda 3 bilood inaad wada weeye aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh